niman xusbiyada ka tirsan oo ugu weyn yahay Ismaaciil Buuba waxaan maqlaayay asagoo la Soomaaliya ma kala go'ayso waxa weeyaan Somaliland hadii og yahay aan jecelahayna inuu og yahay qiimaha Somaliland inagu fadhida inay qiimo weyn yahay wadankeennii dhan iyo dadkeennii oo dhan inay ku dhamaadeen intana wax yar oo imika la keenay oo ku timi qasab iyo dhiigii umadeena oo in calanka ka hayna dad dhan aragtidoodii inaanay dadka Somaliland maskaxdooda caayin oo aanay ka soo qaadin istibiraan ku ciyaarin dadka noocaas oo kale waxaas oo kale miindiyaha marinayana waxaan ka codsan lahaa dawladdu inay sharciyo ka soo saarto oo la ogaado xusbiga waxaas oo kale ku shaqale in la daba galo inay ogaadaan contactiga wadanka soo galaya meelid Somaliland ku ah in Somaliland gudaheeda lagaga sheekayn oo aanu noqonin ambareelo u jooga halkan Soomaaliya amba meel dhacday oo waxba ka jirin oo wax shaqaynahayn in dadka Somaliland maskaxdooda lagu ciyaaro I believe anigu inuu ninkaasi Soomaaliya aaminsan yahay Soomaaliya aan jirin oo magac jiray ahaa laakiin hadeer aanay jirin inuu ninkaasi aaminsan yahay asaga iyo rag badan oo wadani ku jira oo burburka Somaliland mooyaane aan ka shaqaynin positive-ka Somaliland waxa fiirisan eega meelaha miidiyahooda ku jiro wax positive ah oo Somaliland leedahay oo ku arkaysaan ma jirto xusbiga haduu xitaa saxan yahay waxa jira dad badan oo aan dakafara oo ku jira xusbigan marka Buuba hadaan u soo noqdo waxa weeyaan asagu wadadiisii saxda ahayd buu ku jiraa waligiiba Somaliland oo kaga soo horjeeday laakiin lama xisaabtamin waxaan idin oran lahaa aan waliba dawladda aan oran lahaa in lala xisaabtamo dadka noocaas Soomaali wax la yiraahdo ma jirto Somaliland markaas cid isku imanayso asagu ka hadlaayo isu keenayo hisnatig cid isuma keeni karo laakiin wuxuu rabaa Somaliland sidii aw ka uga samayn lahaa waxa imika la sheegayaa dhalinyarada Somaliland oo fara badan oo koonfur la qabadsiiyay oo hadeer lala yahay asaga iyo niman badan oo koonfur jooga inay sponsor ka yihiin oo dhalinyaradii Somaliland lala iyo meel ay qabato dadka in lagala xisaabtamo weeyaan golahan baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkan waqti dheer bay wadanka joogeen ay maxaan halkan fadhiyeen adduunyadu waxay u baahan tahay oo la sameeyaa 5 sanaba inuu change-yimaado oo wax cusub soo galaan amba dhiig cusub la geliyo amba de program cusub oo wadankii soo galo qofkan face-kiisii bedelo qof cusub u yimaado dadka markaas inaga waad aragtaa intaas oo sanadood bay fadhiyeen in kastay wax qabteen haddana bulshada Somaliland habi kuma aha golaha deegaanka iyo baarlamaanka labadaba waxaan jecelahay laakiin amba si aan rajaynayaa inay sidii loogu tala galay kol hadii xisbiyadii qaranka iyo maxaan raahdaa la isla qaatay bulshadii Somaliland inay ku dhici doonto hadii dhinac kasta laga wada ilaashado sidii loogu tala galay inay u dhici doonto horta maalin dhaweytolo waxaan maqlaayay madaxweynaha qaranka inuu yiri maxaan raahdaa dadka laga tirada badan yahay iyo haweenkaba in laga bixinayo dhaqaalihii loogu tala galay maxaan inay bixiyaan taasi waxa weeyaan dumarka iyo bulshada maxaan raahdaa qaybteedan kalaba inay u fiican tahay guul ay ka gaadheen madaxweynahan ugu hambalyeynaya deegaanka ee Somaliland ee waliba Hargeysa